sidee hal tababare oo loo dhiibay hogaaminta Real Madrid xilli ay burbur ku dhaweyd oo hal xilli ciyaareed gudihiis ugu bedelay kooxda ugu fiican kubadda cagta Yurub oo dhan sideesa ninka guushaasi gaaray kadib hal sano oo kaliya haddana shaqada looga eriyay haddana dib loo soo celiyay 6 sano kadib isla kooxda si uu mar kale u badbaadiyo isaga oo qabtay shaqo la mid ah tii hore ama xitaa ka fiicanba tani waa sheekada waalida ah ee ku saabsan sida Carlo Ancelotti uu Real Madrid koob la'aantahay ugu bedelay kooxda ugu dilaasan kubadda cagta dunida oo dhan waliba laba mar oo kala duwan safarka Carlo Ancelotti ee kooxda Real Madrid waxa uu bilowday 2013 laakiin waqtigaasi xilli horeba waxa uu ahaa mid ka mid ah tababarayaasha ugu waaweyn taariikhda kubadda cagta sidoo kale waxa uu ahaan jiray xirfadle kubadda cagta ah oo heer sare ah haddii aan soo koobnana sida tababarayaal badan oo waaweyn Carlo Ancelotti waxa uu soo noqday ciyaaryahan weyn waxa uu xirfadiisa ku bilaabay Parma kadibna waxa uu wareegay Roma ugu dambeyntiina waxa uu gaaray heerkiisa ugu sarreeyay xirfadiisa isaga oo ciyaaraya kooxda AC Milan halkaasi oo uu joogay muddo 5 sano ah kuna qaaday 2 jeer Champions League waxa uu door muhiim ah ka qaatay guulaha kooxda waxa uu ahaa qad dhexe oo aad u wanaagsan laakiin nasiib darro xirfadiisu waxa ay ku dhamaatay da'da 33 sano sabab la xiriira dhaawac jilibka ah oo soo noqnoqday ha yeeshee taasi waqti dheer kama qaadan inta uusan u wareegin cutubkiisa xiga ee noloshiisa maxaa yeelay 1992 waxa loo magacaabay tababaraha kooxda Reggiana halkaasi uu si degdeg ugu bilowday inuu magac ku yeesho dhinaca tababarka hal sano oo kaliya kadibna waxa uu qaaday tallaabo weyn isaga oo noqday tababaraha Parma halkaasna waxa uu ku bartay mid ka mid casharada ugu qiimaha badan ee xirfadiisa waa mid ilaa iyo maanta aan ka dhaxaragno hababkiisa ciyaareed Carlo Ancelotti aad buu ugu adkaa qaab ciyaareedkiisa mar walbana waxa uu dooran jiray nidaamka 4-4-2 sida daraadeedna markii loo soo bandhigay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan adduunka Roberto Baggio waa uu iska diiday sababtoo ah kuma habboonayn qaab ciyaareedkiisa dib ayuuna ka ogaaday intani ay ahayd qalad weyn laga bilaabo waqtigaasna waxa uu go'aansaday in xeeladihiisa iyo hamaamulkiisa mar walba ay la jaan qaadaan ciyaartooyda uu haysto arrintaana waxaa si dhab looga arkaa dhammaan safafkii kala duwanaa ee ku soo maamulay Real Madrid sanadihii kala duwanaa ee hogaaminayay kadib Parma waxa uu 2 sano ku qaatay Juventus halkaasi uu tababaro ugu soo noqday Zinedine Zidane waa ninka mar dambe noqon doona kaalihiisa tababaro ee Real Madrid kadibna Carlo waxa uu helay shaqadii ugu weyneed xirfadiisa ee xilligaasi isagoo loo dhiibay hogaaminta kooxda AC Milan halkaasina waxa uu ka dhisay mid ka mid ah kooxihii ugu awoodda badnaa taariikhda isagoo ku guuleystay 2 jeer Champions League intii uu joogay muddo 8 sano ah laga bilaabo 2001 ilaa 2009 waxaana uu markaasi si rasmi isugu muujiyay inuu yahay mid ka mid ah tababarayaasha ugu waaweyn taariikhda kubadda cagta balse dhaxalkiisu halka kuma ekaan kadib kooxda Milan waxa uu wareegay Chelsea oo 2 sano ku qaatay halkaasina waxa uu ku guuleystay 2 koob horyaalka iyo FA Cup-ka kadibna waxa uu wareegay kooxda PSG oo 2 sano ku qaatay isagoo ku hogaamiyay horyaalkii ugu horreeyay ay qaadaan ku dhawaad 20 sano waana xilligaas markii shaqadu uga banaanaatay Spain Jose Mourinho ayaa laga eriyay kooxda Real Madrid kadib markii uu kooxda ku hogaamiyay horyaal balse kadib ku riday god burbura taasoo keentay in kooxdu ay noqoto mid koob la'aan xil ciyaareedkii 2012-13 iyadoo Barcelona ay ku soo laabatay mar kale horyaalka La Liga Spain markii Carlo Ancelotti uu helay wicitaanka maamulka kooxda ugu weyn dunida go'aankiisu ma ahayn mid adag balse shaqaduna ma ahayn mid sahlan kooxdu kuma aysan jirin xaalad aad u wanaagsan waxa xil ciyaareedkii hore ku dhameysatay dhibaatooyin waaweyn oo qolka labiska ka jiray kadib khilaaf dhexmaray tababaraha iyo ciyaartooyda inkastoo ay tahay koox weyn haddana xukunkeedii kubadda cagta sanadahan laguma arag maadaama in ka badan 10 sano aysan ku guulaysan Champions League laakiin maalintii uu yimid Carlo Ancelotti wax walba waa isbedeleen si guud marka loo eego kooxda Real Madrid waqtigaasi ma ahayn mid xun ee kaliya waxa ka maqnaa jihaynta iyo hoggaan cad waana waxa saxda ah ee Carlo Ancelotti uu keenay markii uu yimid kooxda waxa kale oo la shaaciyay in Zinedine Zidane uu noqon doono kaalihiisa tababare isla markiiba Carlo Ancelotti waxa uu bilaabay inuu isbedel ku sameeyo kooxda wuxuu iska diray magacyo waaweyn sida Kaka, Gonzalo Higuain, Mesut Ozil iyo kuwa kale waxaana uu lacagtii ka soo baxday u adeegsaday inuu keeno Dani Carvajal, Casemiro, Isco, Ilara Mendy iyo kan ugu muhiimsan Gareth Bale kaasi oo lagu soo iibsaday lacag rikoor caalami ah isagoo loo arkay mid ka soo daahay waayihii dahabiga ahaa ee Galacticos-ka Real Madrid hadda kooxdu waa ay dhameystiran tahay Carlo Ancelotti si degdeg ah ayuu u helay qaab ciyaareedkiisii uu door bidayay Iker Casillas ayaa ku soo bilowday goolka afarta daafac waxay ka koobnaayeen Dani Carvajal, Pepe, Ramos iyo Marcelo Xavi Alonso ayaa qad ka dhexe maamulayay halka Modric iyo Di Mariana ay hortiisa ka ciyaarayeen weerarka saddex aflaha ah ee dilaaga ah Bale, Benzema iyo Ronaldona afka hore xil ciyaareedkana waxa uu ku bilowday August 2013 guul 2-1 oo ay ka gaareen Real Betis balse ololaha Champions League waxay ku bilowdeen si ka siyaab badan iyagoo 6-1 ku xasuuqay kooxda Turkiga ee Galatasaray Ronaldo waxa uu dhaliyay 3 ley Benzema waxa uu dhaliyay 2 halka gool oo kalena waxa ku darsaday Isco
saddexleyda Ronaldo ma ahayn wax lala yaabo marka loo eego sheekadiisa xil ciyaareedka ee soo socota maadaama uu goolal ka dhaliyay meel kasta sanadkaasi kooxda Carlo Ancelotti waxay sii waday qaab ciyaareedkeeda wanaagsan ilaa ay ka wajaheen Atletico Madrid bishii September halkaas oo ay kala kulmeen guuldarro hal iyo eber ha yeeshee kulanka labadan kooxood waxa uu noqon doonaa mid go'aamiya dhamaadka xil ciyaareedka xifaaltanka labada kooxood ee Real Madrid iyo Atletico Madrid waxa uu gaaray halkii ugu sareysay sanadkaasi arrintaasna gadaal ayaan ka faahfaahin doonaa laakiin xaaladdu ay ka sii dartay Real Madrid markii sidoo kale ay guuldarro kala kulantay El Clasico-dii ugu horeysay xil ciyaareedka taasoo la micno ah in labada kooxood ay xifaaltamaan labaduba ay xilli hore ka adkaadeen ha ahaatee waa ay soo laabteen weliba si cajiib ah maadaama Real Madrid Carlo Ancelotti aysan guuldarro la kulmin ilaa iyo bilihii November iyo December taa macnaheeduna waxa uu ahaa in marka sanadka cusub la gaaro ay u soo baxeen wareegyada knock-out-ka ee Champions League sidoo kale ay ku jireen Copa del Rey isla markaana ay u dagaalamayeen hogaaminta horyaalka La Ligaha wax walba waxa ay bilowdeen inay soo hagaagaan oo si fiican u shaqeeyaan rajaduna waxay noqotay mid wanaagsan oo ka wanaagsan sidii ay ahayd xilligii hore ee Mourinho markii la gaaray bishii Maarso La Liga waxa uu noqday tartan saddex kooxood u dhaxeeya balse horyaalku waxa uu soo afjarmay laba kulan oo aad muhiim ugu ahaa isla bishaasi Real Madrid waxay dhibco ku lumisay kulamadii ay la ciyaareen Atletico kadibna kulankii El Clasico-da ayaa lagu garaacay 4 gool iyo 3 gool Messi ayaa dhaliyay saddexley waxaana uu ahaa kulan muran badan dhaliyay kadibna bishii May iyaga oo wali fursad haysta Real Madrid waxay lumiyeen hal kulan oo kamid ah 4 kulan taasoo keentay in Atletico Madrid ay ku guuleysato La Liga Barcelona ay gashay kaalinta labaad Real ay ku dhameysatay kaalinta saddexaad iyada oo kaliya 3 dhibcood ka hooseysa kooxda horyaalka qaaday guuldarooyinka xilliyada muhiimka ah ayayna ku weyday horyaalka laakiin tartamada koobabka kooxda Carlo Ancelotti waa ay ka arguteen labada kooxood ee xifaaltamaan midii ugu horeysay waxay dhacday bishii Abriil markii ay finalka Copa del Rey la ciyaareen Barcelona Real Madrid waxay ciyaartaasi ku adkaatay 2 gool iyo 1 iyadoo Di Maria iyo Bale looga mahad celiyay goolasha goolka Bale waxa uu noqday mid ka mid ah goolasha ugu caansan taariikhda kubadda cagta sida daraaddeedna kooxda Ancelotti waxay heshay koobkeedii ugu horeeyay xil ciyaareedka markaana waa inaynu ka hadalnaa koobka ka weyn dhamaantood maadaama Real Madrid ay sanadkaasi qabsatay kubadda cagta Yurub tartankan Real Madrid kuma aysan guuleysan dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay iyadoo oo raadinaysa La Decima ama Champions League-geeda tobnaad wareegga gurubyada waxay ahaayeen kuwa aan la joojin karin Ronaldo waxa uu jabiyay rikoor cusub oo dhinaca xidiga ugu goolasho badan heerka gurubyada ah isagoo dhaliyay 9 gool markii la gaaray wareegga 16-kana waxay shalka ku xasuuqeen lugtii hore 6 iyo 1 iyadoo Bale Benzema iyo Ronaldo mid walba uu 2 gool dhaliyay lugtii labaad oo 3 iyo 1 waxay u sahashay inay si raaxo uga soo gudbaan wareegga sidamaadka waxa lagu aadiyay Borussia Dortmund oo final ka gaartay sanadkii hore inkastoo ay ku badiyeen lugtii hore 3 iyo eber haddana lugtii dambe ayay la kulmeen guuldarro 2 iyo eber taasina waxay ka dhigtay inay ku soo baxaan wadarta 3 iyo 2 una gudbaan wareegga semifinalka halkaasna waxyaabuhu waxay u muuqdeen inay soo adkaanayaan waxay la ciyaarayeen kooxda Bayern Munich oo difaacanaysa Champions League lugtii hore oo ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu hal iyo eber Karim Benzema ayay ku adkaatay Real Madrid laakiin markii ay u safreen lugtii labaad garoonka Bayern ee Allianz Arena waxay u bedeleen sidii garoon tababar iyagoo 4 iyo eber ku burburiyay Ramos iyo Ronaldo ayaa dhaliyay min 2 gool taasina waxay u dirtay finalka Champions League halkaas oo ay ku wajahayaan dariskooda isku magaalada yihiin Atletico Madrid ciyaartan waxay ahayd mid aad u weyn Real Madrid waxay xilli horeba lumisay horyaalka mana aysan doonaynin inay lumiyaan koob kale oo weyn laakiin xaaladdu waxay u muuqatay mid aan wanaagsanayn maadaama Diego Godin uu dhaliyay gool qaybtii hore Atletico Madrid ay si adag u difaacdeen hogaamintooda ciyaarta ilaa daqiiqadii 9aad halkaas oo Real Madrid ay ku heshay corner waxaana madax cajiib ku dhaliyay Sergio Ramos kubadaasi madax ahna waxa uu ciyaarta ugu daray waqti dheeriya goolkan daqiiqadii ugu dambeysay ayaa siiyay kooxda Carlo Ancelotti dhiirigelin maskaxeed oo aad u weyn waxayna galeen waqti dheeriya iyagoo oo leh kalsooni weyn iyagoo oo dhaliyay 3 gool goolashaasi oo ay kala dhaliyeen Bale Marcelo iyo Ronaldo ciyaartana waxay ku adkaadeen 4 gool iyo 1 tani waxay ka dhigtay Real Madrid inay ku guuleysato Champions League-geedii taariikhiga ah ee tobnaad Carlo Ancelotti waxa uu ku guuleystay kiisii ugu horeeyay uu la qaado kooxda sida aad ogtahayna kani ma ahayn kiisii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan Cristiano Ronaldo waxa uu qabsaday dhammaan ciwaanada wararka maadaama uu jabiyay rikoorka goolasha ee Champions League hal xilli ciyaareed laga dhaliyo isagoo oo dhaliyay 17 gool isla markaana waxa uu dhameystirtay xilli ciyaareedka isagoo oo leh 51 gool tartamada oo dhan Bale iyo Benzema labaduba waxay dhaafeen tartamada oo dhan 20 gool Di Maria isaguna waxa uu ku darsaday 11 gool waxaase doodaha qaarkood ay qabeen in Di Maria uu yahay ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda arrintaasina waxay cadaatay xilli ciyaareedkii xiga wixii dhacay markii la gaaray xilli ciyaareedkii 2014-15 Carlo Ancelotti waxa uu iska iibiyay Xavi Alonso iyo Di Maria waxaana uu kooxda keenay xidiga muhiima sida Keylor Navas, Toni Kroos iyo Chicharito Hernandez
xilli ciyaareedkana si xoogan ayay ku bilowdeen iyagoo ku guuleystay UEFA Super Cup-ka kadibna 22 kulan oo xiriir ah waa ay badiyeen ilaa iyo bishii Janaayo sidoo kalena waxay ku guuleysteen koobka kooxaha adduunka laakiin bishii Febraayo ee sanadkaasi arrimuhu waxay bilaabeen inay u leexdaan dhinaca xun ee Carlo Ancelotti. Atletico Madrid ayaa Real Madrid ku xasuuqday 4 gool iyo waxba kulan horyaalka ah inkastoo Real Madrid ay wali hogaaminaysay horyaalka xilli ciyaareedkii hore waxay ku dhawaadeen 3 hase yeeshee waxay waayeen La Ligaha taasina waxay ahayd yoolkooda sanadkan ha yeeshee wax walba waxa ay burbureen bilo gudahood. Barcelona ayaa si degan u dhistay koox dadka oo dhan ay ku riyoodaan waa kooxdii ay hogaaminayeen weerarkii Messi, Suarez iyo Neymar mana jirin cid joojin kartay. bishii Maarso Real Madrid waxaa looga adkaaday 2-1 kulan El Clasico guushaasina Barcelona waxay u sahashay inay ku guuleysato horyaalka La Liga iyagoo ku dhameystay xilli ciyaareedka kaalinta koobaad 2 dhibcood ayayna ka sareeyeen Real Madrid. Real sidoo kale waxaa laga reebay Copa del Rey iyadoo Atletico Madrid ay ka adkaatay halka Juventus ay semi-final kaga reebtay tartanka kooxaha Yurub ee Champions League. Sidaadna Real Madrid xilli ciyaareedka waxay ku dhameysteen iyagoo wax koob weyn aan qaadin. Ronaldo waxa uu sameeyay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa shakhsi ahaan abid isagoo oo dhaliyay 61 gool tartamada oo dhan isla markaana ku barwaaqoobay nidaamka Carlo Ancelotti balse nasiib darro koox ahaan xaaladdu ay ku xumayd. 25 May madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa ku dhawaaqay go'aan adag isaga oo yiri waxaan qaadanay go'aan adag oo ah inaan si degdeg ah xilka uga qaadno Carlo Ancelotti. Carlo waxa uu kasbaday qalbiyada maamulka iyo taageerayaasha mar walbana waxa uu kaalin ku yeelan doonaa taariikhda kooxda ha yeeshee dalabaadka kooxdan waa kuwa aad u sareeya waxaan u baahannahay inaan dhiirigelin cusub sameeyno si aan ugu guuleysano koobab oo aan ugu jirno heerkeena ugu sareeya. si cadaalada marka loo eegana tani waxay ahayd go'aankii ugu saxsanaa maxaa yeelay 3 xilli ciyaareed ee xigay Real Madrid waxay galeen xilligii Zidane iyagoo oo ku guuleystay 3 Champions League oo xiriir ah laakiin waqti badan ma qaadan kahor inta aysan mar kale xaalad xun galin kuna qasbanaan in Carlo Ancelotti ay u yeertaan si uu mar kale u badbaadiyo. kadib markii laga eriyay Real Madrid 2015 Carlo Ancelotti waxa uu qaatay sanad fasaxa si uu galo qalliin kadibna waxa uu noqday tababaraha Bayern Munich waxaana uu ku guuleystay Bundesliga balse xilli ciyaareedkiisii labaad waa laga eriyay kooxda 2018 waxa uu wareegay dhinaca Napoli ee Talyaaniga balse halkaasna hal sano oo kaliya ayuu joogay kahor inta aan laga eriyin. ugu dambeyntiina waxa uu gaaray meelihiisii ugu hooseeyay xirfadiisa tababaranimo. Everton ayuu 2 xilli ciyaareed ku qaatay isagoo ku dhameystay kaalinta 12aad iyo kaalinta 10aad ee horyaalka Premier League. wicitaan lama filaana ayaana kaga filnaaday inuu England ka tago kuna laabtay Spain. waxay ahayd xagaagii 2021 Carlo Ancelotti ayaa wacay agaasimaha guud ee Real Madrid Jose Angel Sanchez si uu weydiiyo haddii Everton ay heli karto ciyaartoy kooxdaasi ah. wuxuu sidoo kale weydiiyay xaaladda Real Madrid. Jose waxa uu ugu jawaabay inay aad ugu adag tahay helidda tababare isla markaana arrimuhu aysan fiicnayn tan iyo markii Ronaldo iyo Zidane ay bixeen 2018. halkaas ayuuna Ancelotti si fudud mar kale ugu bandhigay naftiisa inuu kooxda u adeegi karo. Sanchez arrinta waxa uu la wadaagay Perez 3 maalmood gudahoodna Ancelotti waxa uu ka baxay Everton isagoo ku laabtay Bernabeu si uu Real Madrid u badbaadiyo mar kale. arrinta xiisaha leh ayaa ahayd in Carlo Ancelotti iyo Real Madrid labaduba ay ku jireen xaalad isku mid ah. labaduba waxay ahaayeen kuwa ka gudbay heerarkoodii ugu fiicnaa isla markaana u baahnaa inay dib isu soo nooleeyaan. taasna waxaa loo arkay waxa ugu wanaagsan ee la isu keeni karo. lafdhabarta kooxdu weli waxay ahaayeen xidigii hore ay soo wada shaqeeyeen sida Modric, Kroos, Carvajal, Nacho, Isco, Marcelo, Casemiro iyo Benzema. ha yeeshee waxaa jira iyaguna ciyaartoy da'yar ah oo u baahnaa hagid dhaba sida Vinicius, Rodrigo, Valverde iyo Militao. waxaa kale oo jiray goolhayo ku cusub Ancelotti, Thibaut Courtois iyo xidig miisaankiisa uu sii kordhayo Eden Hazard. Carlo Ancelotti markan waxa uu lahaa aragti cad waxa uu sameeyay saxiix weyn Eduardo Camavinga. waxa sidoo kale uu keenay David Alaba oo Bayern ka yimid. kooxdan waxay u diyaarsaneen xilli ciyaareedkeeda koobaad inay dagaalanto kahor inta uusan xilli ciyaareedku bilaaban. shaki badan ayaa ka jiray waxa ay Real Madrid gaari karto waayo sanado badan ayay ku jireen hoos u dhac waxaana laga reebayay tartamada oo dhan laakiin dhamaadka xilli ciyaareedka shakigaasi waa uu burburi doonaa. farqiga ugu weyn ee u dhaxeeyay waayihiisii hore ee Real Madrid iyo kan hadda waa inuusan haysan Cristiano Ronaldo ninkii dhalin jiray in ka badan 50 gool xilli ciyaareedkiiba laakiin nasiib wanaag sanadkan Karim Benzema ayaa qaatay doorkaasi hogaamineed bilowgii xilli ciyaareedkana taasi way cadaatay isagoo oo 2 gool dhaliyay kulankii ugu horeeyay ee La Ligaha. Vinicius ayaa isna gool dhaliyay kulankaasi taasoo ahayd calaamad muujinaysa wixii imaan lahaa. laga bilaabo maalintii uu Carlo Ancelotti yimid wax walba waa isbedeleen. Viniciusna waa uu ka fiicnaaday sidii xilli ciyaareedkii hore. tartanka Champions League waxay ku bilowdeen guul darro lama filaan oo ay kala kulmeen kooxda Sheriff wareegga guruubyada balse kadib kooxdu waa ay soo jeensatay waxaana ay badiyeen 5 kulan oo xiriir ah iyadoo Benzema, Vinicius iyo Rodrigo dhammaantoodba ay qaab ciyaareed cajiib muujiyeen.
markii la gaaray Janaayo Real Madrid waxay hogaaminaysay horyaalka La Ligaha iyaga oo 2 dhibcood ka sarreeya Sevilla tan xiisaha badan waxay ahayd waxay 11 dhibcood ka horeeyeen Atletico Madrid 12 dhibcoodna waxay ka hormareen Barcelona oo ku jiray kaalimaha afraad iyo shanaad maadaama ay ku jireen xaalad liidata halka ugu sarreeyay horyaalkana marna kama aysan soo dhicin ugu dambeyntiina waxay ku guuleysteen La Ligaha waliba si raaxo leh iyaga oo ku dhameystay 13 dhibcood oo farqi ah oo ka sarreeya kooxda kaalinta labaad bishii Abriil ayayna u dabaaldegeen horyaalka balse inkastoo ay xukumayeen horyaalka haddana kuma aysan qanacsanayn waxay doonayeen xil ciyaareedkaasi inay sameeyaan waxyaalihii sixirka ahaa ee lagu yaqaanay marka ay joogaan tartamada Yurub wareegga 16 waxay la ciyaareen PSG Kylian Mbappe ayaana dhaliyay halka gool ee lugtii hore ay ku adkaatay kooxda Faransiiska lugtii labaad Kylian Mbappe ayaa mar kale dhaliyay ilaa daqiiqadii 60 Real Madrid waxa lagu hogaaminayay 2 gool iyo waxba laakiin markaas Karim Benzema ayaa soo kacay isaga oo 3 lay dhaliyay 20 daqiiqo gudahood ciyaartana ku dhameeyay 3-2 oo Real Madrid ay ugu soo baxday wareegga xiga kadibna waxay la ciyaareen Chelsea oo difaacanaysa tartanka Karim Benzema ayaa mar kale dhaliyay 3 lay lugtii hore Real Madrid waxay ku badisay 3 gool iyo hal lugtii labaad Chelsea ayaa soo laabatay oo 3 gool dhalisay hayeeshee daqiiqadii 80 Rodrigo ayaa gool dhaliyay ciyaartana waxa uu diray waqti dheeriya daqiiqadii 96 Benzema ayaa dhaliyay gool kaga filnaaday Real Madrid inay gaarto semi-finalka kulan kale oo la yaab lahaa markan waxa ay wajahayeen kooxda Manchester City waa laba kooxood oo aad ugu dagaalama tartanka inta badanna kooxda soo baxda ay qaado tartanka lugtii hore waxay ahayd ciyaar waaliya oo ku dhamaatay 4-3 oo Real Madrid looga adkaaday Benzema ayaa 2 gool dhaliyay Viniciusna mid kale balse Real waa inay Bernabeu tagtaa iyadoo oo gool lagu leeyahay lugtii labaad markii ay bilaabatayna xiisadu sidii hore waa ay ka sarreysay daqiiqadii 73 Riyad Mahrez ayaa gool dhaliyay kooxda Cityna waxay ku qabteen hogaaminta 2 gool taasoo u muuqatay in ciyaartu ay dhamaatay laakiin daqiiqadii 9aad Karim Benzema ayaa ku badsiiyay Rodrigo kaasi oo dhaliyay goolkaasi hal daqiiqo kadibna Rodrigo ayaa mar kale shabaqa gaaray isagoo ciyaarta u diray waqti dheeriya mid ka mid ah bandhigyada ugu geesisanaa ee Champions League 6 daqiiqo oo waqtiga dheeriga ahna Karim Benzema ayaa lagu galay khalad xirada ganaaxa rigoor ayaa loo dhigay dabcan Benzema waa uu dhaliyay Real Madridna waxay ilaashadeen hogaamintooda ilaa laga yeeriyay seeriga dhamaadka ciyaarta waxayna gaareen finalka Champions League oo ay la ciyaari doonaan kooxda Liverpool ciyaartani ma noqon mid u xamaasad badan sidii kulamadii hore oo kale maadaama uu jiray hal gool oo kaliya kaasoo u dhaliyay Vinicius daqiiqadii 59aad halkaasi gool ayaa kaga filnaaday wiilasha Carlo Ancelotti kuwaasi oo si adag u difaacday ilaa iyo dhamaadka waxaana uu ku guuleystay Champions League xilciyaareedkii ugu horeeyay ee Carlo Ancelotti uu dib ugu soo laabtay kooxda Real Madrid sanadkaasi waxa uu ahaa kii Karim Benzema oo xilciyaareedkaasi ku dhameystay 43 gool tartamada oo dhan waxayna taasi ka caawisay ku guuleysiga Ballon d'Or-ka laakiin xaqiiqadu waxay ahayd in dhammaan kooxda Real Madrid ay ahayd mid wax kala bilowgii xilciyaareedka waxay u muuqdeen kuwa aan rajo badan laga qabin balse dhamaadkii waxay noqdeen horyaalka Spain iyo horyaalka Yurub kadib dabaaldeg sigaar iyo farxad si degdega ayay ugu soo laabteen shaqada sababtoo ah kooxdu waa inay bilowdaa mar kale dadaalka xilciyaareedka cusub Carlo Ancelotti waxa uu galay xilciyaareedkiisii labaad oo dib ugu soo laabtay Real Madrid isagoo ah tababaraha ugu guulaha badan taariikhda Champions League waxa sidoo kale uu bedelay kooxdii ay ka buuxeen niyad jabka iyo murugadu una bedelay mid xamaasadaysan saaxiibtinimo leh isla markaana aragti cad ku ciyaaraysa wuxuu sii waday dhismaha mashruuciisa isagoo la soo siixday Rudiger Tchouaméni isla markaana macsalaameeyay jiilkii hore sida Marcelo Isco Bale iyo Casemiro kooxda Ancelotti waxay si heer sare ah ku bilowdeen xilciyaareedka iyaga oo badiyay 10 ka mid ah 12 kulan ee ugu horeeyay horyaalka La Ligaha halka Vinicius Rodrigo iyo Valverde ay si joogto ah u fiicnaanayeen kuna guuleysteen El Clasico-doodii ugu horeysay waxay hogaaminayeen groupkooda Champions League wax walbana waxay u ekaayeen in guulihii xilciyaareedkii hore ay sii socon doonaan balse halkaasi ayay ka bilowdeen inay wax qaldamaan La Ligaha ma aysan badin wax ka badan 2 kulan oo xiriir ah taasina waxay keentay farqi gaaraya 10 dhibcood oo ay Barcelona ka hormartay Champions League waxay gaareen semi-final balse Manchester City ayaa ku garaacday labada lugba 5 gool iyo hal hayeeshee xilciyaareedkaasi wali ma ahayn mid guul darro ah maadaama ay ku guuleysteen Copa del Rey iyo koobka kooxaha adduunka kooxdan daayirta u badanna ay lahayd aragti cad markii la garay xilciyaareedkii 2023-24 wax walba waxay u gudbeen heer kale bilowgii xilciyaareedka Karim Benzema ayaa macsalaameeyay kooxda kadib 2 sano oo uu hogaaminayay kooxda Carlo Ancelotti badalkii weeraryahanka ugu fiican dunida ayaa noqday qof cid walba ka yaabisay maadaama Real Madrid ay la soo siixatay Joselo weeraryahan aan caan ahayn balse taageerayaasha Real Madrid aysan ogeyn in ninkani uu badbaadin doono xilciyaareedkooda oo dhan Carlo Ancelotti sidoo kale wuxuu gabi ahaanba iska diray Eden Hazard
waxa uu sidoo kale fasaxay Asensio markaasna kaliya 4 ciyaaryahan ayaa ka soo haray xidigihiisii waagii hore waa Modric, Kroos, Carvajal iyo Nacho waa rag uu si buuxda ugu kalsoon yahay istiraatiijiyadda in la dhisay Galacticos cusub ayaa sidoo kale socotay iyadoo Real Madrid ay la soo saxiixatay xidiga ugu hibada fiican Yurub Arda Güler Brahim Diaz ayaa ka soo laabtay sidoo kalena waxaa lala soo wareegay kan ugu fiican dhammaantood Jude Bellingham oo lagu keenay 100 milyan inta badan ciyaaryahan da'yara oo qiimayntaasi lagu keeno Real Madrid waa uu ku guuldareystaa balse jawiga uu dhisay Carlo Ancelotti awgeys Bellingham waxa uu ka sara maray dhammaan wixii laga filayay waxa uu ku guuleystay xidiga La Ligaha bishii ugu horeysay ee ciyaaray tartanka wuxuu bilaabay inuu dhaliyo goolal badan waliba si fudud isagoo aqad dhexe hayeeshee xilciyaareedka ayaa shaki galay markii uu dhaawac ACL galay Thibaut Courtois arrintaasina wax dhib weyn ma noqon maadaama Lunin uu si buuxda ugu istaagay waajibaadkaasi 28 Oktoobar El Clasico-dii ugu horeysay ayaa la ciyaaray Bellingham ayaana dhaliyay 2 gool Real Madridna waxa ay ku guuleysatay goolal soo laabasho bandhigan raaxada leh waxa uu sidoo kale ka socday tartankooda Champions League maadaama Real Madrid ay ku dhameysteen heerka gurbiyada 6 kulan oo ay 6daba badiyeen waxay u muuqdeen kuwa aan la joojin karin Carlo Ancelotti waxa uu saxay qandaraas cusub oo 3 sano ah mustaqbalkuna waxa uu muuqday mid ifaya waxa uu Real Madrid ka bedelay koox ku tiirsan hal ciyaaryahan Cristiano Ronaldo 2014 iyo Benzema xilliyadii dambe una rogay koox wada jira halkaas ay goolasha wadaagaan Bellingham, Vinicius, Rodrigo iyo xitaa Joselo intii tartanka horyaalku uu socdayna Barcelona iyo Atletico Madrid midna wax dhiba kuma haynin kooxda Ancelotti kaliya Girona ayaa cadaadis saartay bilowgii xilciyaareedka balse qaybtii labaad hoos ayay u dhaceen ilaa iyo 4 May markaasi oo Real Madrid loo caleemo saaray ku guuleysiga horyaalka La Liga markoodii labaad muddo 3 sano gudaheeda waxay sidoo kale ku guuleysteen Spanish Super Cup-ka iyadoo Vinicius uu dhaliyay 3 kulankii ay Barcelona la ciyaareen sida caadada u ah Real Madrid sixirkooda ugu weyn waxay u kaydsadaan Champions League wareegii 16 waxay la ciyaareen kooxda RB Leipzig 2 lugood oo adag kadibna Real Madrid waxay ku adkaatay 2-1 wadar ahaan goolalka kala yimid Vinicius iyo Brahim Diaz kadibna sidii caadada ahaydba waxay mar kale la kulmeen Manchester City wareegga 8-damaadka labada kulanba waxa ay ku dhamaadeen barbaro 3-3 iyo 1-1 kulankii lugtii labaad taasoo ciyaarta u dirtay rigoorayaal inkastoo Modric uu lumiyay rigooradii ugu horeysay Real Madrid waa ay ka badbaadeen iyagoo uga mahadnaqaya badbaadina geesinimo leh uu sameeyay Lunin iyagoo u gudbay semifinalka sanadkii 3aad oo xiriir ah semifinalka waxay la ciyaareen Bayern Munich Vinicius ayaa dhaliyay 2 gool lugtii hore ciyaartuna waxay ku dhamaatay 2-2 lugtii labaadna Real Madrid waxaa lagu lahaa goolal 2 daqiiqo iyadoo ay ka harsan tahay ciyaarta laakiin haliyay lama filaan ayaa soo baxay daqiiqadii 88 Joselo ayaa dhaliyay gool daqiiqadii 91 Joselo ayaa mar kale shabaqa gaaray isagoo oo Real Madrid u diray finalka Champions League ciyaar waali ah oo tartamada Yuruba finalkiina waxay la ciyaareen Borussia Dortmund markaan Real Madrid waxay ahaayeen kuwa ugu cadcad ee loo saadaalinay tartanka Borussia Dortmund waxay ahaayeen kuwa khatar badan qaybtii hore balse ma dhameysteen fursadahooda daqiiqadii 74 Carvajal ayaa ka dhaliyay gool ciqaab ah 10 daqiiqo kadibna Vinicius ayaa ciyaarta soo gabagabeeyay isaga oo gool dhaliyay finalkiisii labaad oo Champions League Real Madrid waxay qaaday Champions League-geedii labaad 3 sano gudahood iyo kii saddexaad ee Carlo Ancelotti kooxda la qaado xilciyaareedkan waxa uu ahaa mid taariikhiya sabab badan awgood mar waxa uu ahaa kulankii ugu dambeeyay Toni Kroos oo go'aansaday inuu ka fariisto kubadda cagta isagoo ku jiray heerkiisii ugu sareeyay kana mid ah ciyaartooyda ugu guulaha badan taariikhda Champions League isagoo oo la mid noqday Nacho, Carvajal iyo Modric marka labaad Carlo Ancelotti waxa uu ku guuleystay Champions League 7 jeer 2 mar isagoo ciyaaryahana 5 marna isagoo tababara taasoo ka dhigaysa ninka ugu guulaha badan taariikhda tartankan xilciyaareedkan goolasha si siman ayaa loo qaybsaday 24 gool ayuu dhaliyay Vinicius oo ku guuleystay laacibka Champions League 23 gool ayuu dhaliyay Bellingham oo ku guuleystay laacibka La Ligaha 18 gool waxaa dhaliyay Joselo 17 gool Rodrigo iyo 12 gool Brahim Diaz waxaana dadka oo dhan cabsi ku beerayay kooxdan daayirtu ka buuxdo ee wada khatarta markii la galay xilciyaareedkii xigayna waxay noqotay mid ka sii halis badan maadaama Kylian Mbappe uu noqday xidigii ugu dambeeyay ee ku soo biira daayirta Real Madrid ee noqon doonta Galacticos-ka cusub hayeeshee xilciyaareedkii 2024-25 sidii la filayay kooxda Carlo Ancelotti waa ay noqon weyday wadajirkii iyo iscaawintii waxaa bedelay tartan ka dhaxeeya xidigaha afka hore sida Mbappe, Rodrigo, Vinicius iyo Bellingham taasina waxay keentay in dhammaan kulamadii El Clasico-da ee la ciyaaray ay Barcelona ka wada adkaato kooxda Carlo Ancelotti sidoo kale dhammaan koobka maxalliga ahna ay qaado Barcelona waxa taasi la mid ah in Real Madrid ay Champions League ka cirib jirtay kooxda Arsenal taasina waxay keentay sanad koobab la'aan ah iyo in shaqadiisa uu waayo Carlo Ancelotti